بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن والسولا بورتال oo idin la hadlaya live aan hore loo shaacinin wadankeena quruxda badan Soomaaliya ayaan idin kala soo xiriirahayaa waan idin salaamahayaa inta badan waxaad igu taqaanaan anoo gacanta aan ku hayn baalka telefoonka oo waxaad igu taqaanaan maaragtay isoo soo diyaari waraaqa soo qorta laakiin asxaab badan oo igu xiran oo aan aad u qiimeeyo oo adduunweynaha kala jooga waxay yiraahdeen Cabdinaasir adaa odaygeena aan ku dhageysanaay inta badan isla markaana aan ku dhalinay waxaan naga batay magaaladan caanka ah ee qadiimka ah ee Soomaaliyeed oo 220 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho ee Baraawe ee balniyahow ka soo hadalaya yiraahdeen inta og tahay waan ka hadli karaa ilaan Baraawe waa tagay Baraawe waan si fiican u soo arkay waana markii gureysaan tagay airport la soo sawiray guriga la soo sawiray lacag baa la sheegay leeyahay 4.3 milyan baa leeyahay waxyaalo badan baa laga hadlay waxaas maxaad ka ogtahay leeyahay haddii aan maaragtay magaalo kale aan joogi lahaa Ingiriiska ama Mareykan ama Canada ama meel kale aan joogi lahaa waxa la helahaa waa ra'yi marka waxaan ka hadlayo ra'yi opinion ma aha horta alxamdulillah ilaahay baa mahadle maaragtay magaalada Baraawe caanka ah magaaladan dadku waxay u yaqaanaan magaalo xeebeed ka sokow qadiima waxay ku yaqaanaan geesiintii ugu waaweynaa ee Soomaaliya taariikhdooda soo martay in ay ku dhasheen magaaladaas yaa kamid ah Saqaawadiin waa magaalada ku dhashay waxa ku dhashay Baaba ayaa ku dhashay oo Israel ku jira Baaba waxa kale ku dhashay magaaladaas governatorihii ee gudoomiyihii ugu horeeyay ee magaalada Muqdisho Ilaahay u naxariistay Ali Umar Sheegow ayaa maaragtay ku dhashay magaalo taariikhdeeda aan la soo koobi karin oo lahjadiyo u gooniyay leh marka intaas waa baritaanka 220 kiiloomitir ay waxay u jirtaa caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho ay u jirtaa marka walaalayaal waxaan idin sheegayaa waxa la yiri airport baa la dhisay horumar yaa diidaya wanaag yaa diiday qofna diidi maayo laakiin waxa lagu mashquulay waxyaabo cajiib ila noqday oo markii hore waxaan isla haba ka hadlin laakiin qof waxa tahay wax walba oo jira xasaasi ah wadanka ka hadlay bal dadka ku dhageystaan qofka waxaan hubaa boqolkiiba konton haday igu raacdo boqolkiiba konton iga soo jeesto habbi ayaan ku faraxsanahay marka waxa jira airport ma laga dhisay magaalada waa laga dhisay lacagta ku baxday waxa ka sii horeysa dhamaanteena waxaan isu bedelnay 24 saac ugu dambeeyay architect dadka dhulka dhisa dadka airportada dhisa dadka dhulka survey ku sameeyay ayaan isu bedelnay waxyaabaha ugu yaabka badan oo aniga aan liqi waay waxa kamid ah hotel Garowe ku yaal iyo waxa la soo barbardhigay dhismaha laga dhisay airportka Baraawe horta ugu horeyn dhismaha airportka oo Baraawe laga dhisay haddii aniga maanta aan ahaan lahaa guri dhisi ama architect gurigaas waxaan dhihi lahaa waxa ku kacday 50,000 ama 100,000 oo dollar marka 4.3 milyan ma lagu dhisay gurigaas tabcan lagu ma dhisin Garowe ma Baraawe maya ugu horeyn qaabka airport loo dhisa waqtigu qaataa sidee loo soo xiraa sidee runway loo sameeyaa sidee dhulka loo dhisaa baalka loo sameeyaa dhulka bacaadka qaasatan su'aashiis isma weydiin waxaan la yaabay dhalinyarada maartay xoogaa aan wali bislaanin waxaan garan karaa in maartay wax yar ma iska dhigi karaan laakiin dad waaweyn oo waxaan arkay Garowe war Garowe Baraawe ma ahan ugu horeyn dhulku waxa la fiiriyaa waxa tiraahdaa Muqdisho gawaan ah Muqdisho bacaad ah Muqdisho oo sabaan ah oo dhul siman haduu yahay iyo Himalaya Nobel Bhutan China oo buura isku si ma u dhis karaa maya markii aan tagay meesha horta lacagtan 4.3 milyan ki waxyaalo la sheegay waxa bixiyay European Unionka Denmark Talyaaniga ayaa bixiyeen nin kamida injineerada oo wali Soomaaliya aan ahayn baan cabaar la sheekaystay sawir qaaday wax walba si aan u fiiriyo wuxuu igu yiri waqtigii shaqada laga bilaabay meeshan survey lagu sameeyay haddii aad dhihi lahayd magaalada Baraawe ayaa waxa laga sameynaya meeshan aan taganahay airport laga sameynaya waxaan ku dhihi lahaa waxa tahay qof hurdo ee soo toos Baraawe qofkii tagay dhulka sida bacaadka ah ee bacaad reebka ee badda ku dhow oo dhulkii buuro u yeeshay in bacaadka meesha laga qaado oo la nadiifiyo waxay qaadatay muddo 1 sano ku dhaweeyay qaadatay sababtoo ah Soomaalidu waxay ku maamaada habar aan lagdin ku jirin la fududa nin kasta oo kabujiinkiisa Muqdisho ama Toronto ama ku cabaay Roma haduu joogaba wuxuu ku leeyahay sarta oo ku taala hotelkan quruxda badan ee caasimadda Garowe laga dhisay intan ay soo barbardhigaya wax shaqo isku leeyihiin malatan kale airportka magaalada wuxuu jiraa 7 kiiloomitir carradii airportka lagu gawaaneeyay oo gawaanka looga dhigay
meel 7 kilomitir magaalada jirta laga soo qodo laga keenay cagafyada lagu xaqay cagaf kaliya raadi halkii cagaf ee la iibiyo oo kuwa waaweynka ee dhulka dhajay wax ku sameeya kan ugu yar 50,000 $100,000 ayaa lagu gadaa marka in qof walba uu soo fadhiisto oo gawaanka meesha la dhigay aan ka hadlin runwayga gawaanka oo la sameeyay aan ka hadlin oo sar yar oo terminal oo loo dhisay magaalo Soomaaliyeed oo ku mashquulo waxay noqotay ayaan darrada goormaan noqonay ugu horeyn dadka design-ka u sameeyo dhulka yaqaana magaalada Muqdisho oo magaalo bacaad ah oo aad wada taqaanaan guriyihii aad ka tagteen 10 ama 20 sano ka hor waxa ku dhacay maanta dhulkay galeen marka ma kula tahay airport diyaarad intaas ku soo degayso ka kacayso in meel bacaad lagu dhisayo aqligaas inuu shaqeeyo la rabaa kow horumarka markuu dhacay maanta hadii la dhihi lahaa dawlad ama dad qaas ah ayaa lacag gacan loo geliyay waxaan dhihi lahaa musuqmaasuq kama dheer adduunkana musuqmaasuq kama dheer laakiin haddii ay leedihiin dawladda Denmark ayaa rag kickback ama musuqmaasuq sameysay horta taas waxay noqonaysaa wax aan weli la maqlin airport kan waxaan aaminsanahay Soomaaliya u qurux badan wuxuu ku yaala magaalada Garowe runwaygiisa iyo laamigiisa loo sameeyay waxaan dhihi karaa xataa haddii lagu dhisay airport-ka ku yaala magaalada Garowe 1 milyan lagu dhisay waa u qalma kan lagu dhisay Baraawe 5 milyan lagu dhisay sababta waxay tahay dhulka isku mid ma aha dhulka markuu sabaanay yahay dhulka buuraley u yahay anigu ma lihi Baraawe buuraley ah laakiin bacaadkii wuxuu dhisay natural sand oo dust ah oo buura ka dhigay kadib markii laga qaaday ninka injineerka ah 1.5 hours oo Baraawe aan joogan la hadlay markii dhulkii aan nadiifinay la qooyay abaar la sugay ayaan waxaanu gelinay iyo biro aan ku eegayno inta aanu ka gaari karno ilaan hadda Soomaali waagi hore ma jirin qaab guryaha loo dhiso oo guryaha saasay dhulku u galeen birihii markaan gelinay ayaa dhulkii gawaanka ah markii aan gaari weynay in la qodo oo lagu aaso marka lacagaha ku baxay siliga lagu wareejiyay runwayga jaaga lagu soo qaaday gawaarida soo qaaday security-ga loo sameeyay waqtiga qaaday cagafyada dibadda laga keenay oo markab lagu soo dejiyay ee la soo qaaday la soo marsiyay marka xisaabtid ma survey baa taqaana ma accounting baa taqaana ma lacagta bixisay marka waxaan iska noqonay xamaasad waxa la leeyahay dawladda aan dhaliil sawiraal soo rajinay waxa la leeyahay ma garoonkan oo bacaadka ah inta sidaan ah war ilaahay laga baqo dawlad difaac iyo dawlad taageer ma ahan haddii idinka aad la imaataan lacag la musuqmaasuq lagu qaatay ama la cunay ama dad lagu dhibaatay bal nala wadaaga laakiin sound bite-ka ayaa naga hoos baxay waxa la yiri website baa lagu soo qoray 4.3 million of course dawladda Talyaaniga European Union Ingiriiska dhammaan way xaqiijiyeen project-ka loogu talagalay 4.3 million laakiin haddii qalbigeena iyo aqligeena iimaankeena uu nasiiyo guriga terminalka ee yar waan idiri 50,000 ama 100,000 lagu dhisi karaa idiri haddii aan qalbigeena aan gelin airport ma ahan terminal ma aha haddii aad soo aragtay airportka Istanbul oo aad barbardhigaysid magaalada Baraawe Istanbul Baraawe ma aha Baraawe Istanbul ma aha Garowe iyo Boosaaso xataa waxaan arkay dad Boosaaso terminalkeeda soo qaatay airport terminal ma aha surveyga dabeesha horizontalka runwayga verticalka diyaaradaha soo degaan aqligaas ayaa laga shaqaysiyaa laakiin qof hadduu ku soo qaato sawir uu ku yiraahdo subhanallah hotelkan Mansour ama ma qaan magaciisa leedahay quruxda badan Garowe laga dhisay iyo bal isu fiir inta lagu dhisay uu yiraahdo taas waxay noqonaysaa farasti labada dhinac laga saaray bahasho oo wax kala arkin farda kala arkin ay noqonaysaa taasna aqli shaqeynaa ma noqonaysid ma ahan dawlad ku taageer iyo dawlad waab lagu taageeray hadii wax dhacdo waxa kale oo soo ogaanay in meesha loo dhagax dhigay oo laga dhisayo meel dekad laga dhisayo oo dhul carra oo bacaad ah qofkii arka magaalada oo degan hadda oo reer Baraawe badan ayaa waxaan filayaa inay iga daawanayaan dad waxa ay daawanaya ilaa iyo 1,300 ayaa ay daawanaysa reer Baraawe aad u far badan ayaa ku jira marka haddii ay leedahaan survey ayaan sameynay ani geology ma soo baranin laakiin waxaan soo bartay wax la yiraahdo common sense aqli ayaan soo bartay haddii aad leedihiin magaalada siman Garowe ama Boosaaso oo saaxilka ah oo ah sabaanaha ah waxay la mid tahay waxba igama gelin waxay la mid tahay baarkay sagaxa Maka al-Mukarrama la mid tahay hadii waxba isuma sheegayno waa inaan iska hoydaa oo maaragtay guriga hoos aan ka galaa laakiin waxa la rabaa dawladda dhaliil mucaarad wax ka sheeg musuqmaasuq ku qabso laakiin in la yiraahdo guri inta kor laga soo sawiro oo la yiraahdo adima kula tahay meel carra ah oo dhul caadi ah diyaaradiisii 19 ay ku degleen kula tahay ama diyaaradahan yaryar ee meelaha ka duula Muqdisho iyo magaalada Baraawe waxa loo kala duulaa 30 daqiiqo waa horumar ayaa gaartay waa magaalo qadiim ah dad Soomaali oo wanaagsan programo badan ay ka soo duubay carrada ayaa idin soo duubay siday ahaan jirtay 2017 ka ayaan duubay
siday hadda tahay idin soo duubay oo aan idin soo gudbinayo caawa insha Allah idin soo gudbinayo marka live-ka noocan u soo galay asxaab badan aan leeyahay dad badan oo aniga maaragtay aaminsan hadalkayga dad badan iga soo jeedana waa jiraan oo ku faraxsanahay mar walba aniga ma jecel in la taageero la Cabdinaasir hadalkiis waa run hadalkay iska beenayso laakiin maalintan anaga aan noqono qofka design-ka sameeyo wuxuu yiri 37 maalmood biyaha ku furna ayuu yiri waa waxaan la yaabay gawaanka jayga ah oo runway-ga laga dhigay oo kilometraadka ah wuxuu dhahay 37 maalmood 42 inta u dhaxayso biyaha ku furna maxaa biyaha waxaa la tijaabinayay in saankii ama carradii bacaadka kor u soo kacayso marka dhulkan gobollada koonfureed ee Soomaaliya ku yaala haddii laga bilaabo dhul badeedka oo dhan shalay klibi aan ka soo qaaday diyaaradda markay soo kacaysay markay degaysay waxaad ku arkaysaa bacaadkii laga ilaalin jiray Soomaaliya inuu aad ugu soo korayso 30 sano ugu dambeysay oo tiinki ama tiitiin waxa loo yaqaano aan lagu abuurin marka ma ahan ninba 4.3 ama 5 milyan la siiyey wax soo dhisbaa la yiri guri mundulba ka soo waa ka soo dhaqaajiyay surveyga architect ninka design gareeyay lacag aqliga aan galin ay Yurubta siiyeen marka Denmark tender ay sameysay ayaa musuqmaasuq lagu cunayaa iyo Finland iyo European Union taas waxa way aqli shaqeynaya male waxa joogay oo meesha ku furay safiirada waxaan la hadlay Denmark waxaan iri projectigan sida loo maalgeliyay waxay ugu tiri projectigan waa projectyo isla yimaaday oo European Unionka wadamada deeqada bixiya waxaan ku faraxsanahay maanta 32 daqiiqo in loogu duulo Baydhabo iyo caasimada South West 30 looga soo duulo magaalada Muqdisho dadka Soomaaliyeed loo fududeeyo ganacsiga uu bato hoteelo laga dhisay 4 dabaq 5 dabaq marka narrative-ka wuxuu noqday sawir laga soo qaaday magaalada Garowe iyo mid inta waxa ku dhaantaa adiga oo soo qaadid sawir aad ka soo qaadid aad tiraahdid guriga laga dhisay saxaraha galbeed oo bacaadka Duunska la yiraahdo Sand Duunska la yiraahdo laga soo qaaday iyo meel oo wada siman magaalo Soomaaliyeed oo wada siman hadda ka soo qaad waxaad ka soo qaadaysaa dhankan iyo waxaad ka soo qaadaysaa magaalada Muqdisho Maka al-Mukarrama guriga laga dhiso aan bacaad aan ahayn iyo xaafadda hodan hoose guriga laga dhiso isku mid noqon maayo guriyaha Soomaaliya waxay hoos u galeen oo dariishadaha looga arko looga hoosoodo waa taas oo kale marka sallallahu ala nabi qof walba oo Soomaaliya bal ha fikiro ma waxa laga xun yahay umaleyn ma ina ka xun tihiin in horumar Soomaaliya ka dhaco in dawlad difaacay ma jirto meesha waxa lagu difaacay dawlad ma jirto laakiin waxaan la yaabay energy iyo waqtiga la galiyay 4.3 million guri se loo dhisaa ma waxa tahay architect ma tahay guri dhiso ma design airport ba tahay ma waxa tahay airportada u fiirimeed in sheegaya waxyaalaha aniga aan soo ogaaday waxa kamid ah airportka bahal dabeesha ilaal sheegta ayaa ku dhagan oo biibto oo aan ahayn technology oo sidaan kor hoos u socota waxa la yiri diyaaradaha runway-ga say uga soo duulayaan oo diyaaradda markay runway soo gasho maxay u soo kala fireynaysaa maxay meel dheer u tagtaa u soo kala fireynaysaa hatta Heathrow hatta Dubai maxay u soo kala fireysaa diyaaradda qaab ay u duusho hawada ay ka hortagto ama hawada ay raacdayaa jira laakiin min baadiyaha Kismaayo jooga mid baadiyaha Burco jooga mid jooga Dhuusmareeb mid jooga Godin Labe mid jooga Diinsoor mid jooga Baydhabo waxaan wada noqonay ninka diyaaradda wada ninka surveyga sameeya ninka gawaanka dhulka dhiga ninka cabira Sand Duunska waayo wuxuu igu dhahay waxaan siinay ayuu yiri shirkad oo European waxaan siinay sida looga hortago tiin abuurka Sand Duunska waxa la dhahaa bacaadka soo gala dhulka soo gala waayo wuxuu yiri hadda daan dhisno aan ka tagno waxay noqonaysaa jidadka qaarkood oo la leeyahay xamar ay jid qurux badan laga dhisay asbuuc kadibna waxa ku arkaysaa ilaahay duu ku roon yahay waxaad ku arkaysaa iyadoo biyo ay qaadeen marka haddii anaga dhan oo 15 milyan aan wada noqonay Soomaali aan wada noqonay expert of design of the airport sida design loogu sameeyo airport loogu sameeyo sida diyaaradaha u soo degaan sida guriyaha airport loo dhiso haddii laakiin ay leedahay guriga ku dhisan meesha oo terminalka ah iyo musqusha yar waxa lagu dhisay 4.3 milyan aniga ayaa kitaab gacanta u saaraya inay been tahay oo aan lagu dhisin oo wax u dhow aan lagu dhisin laakiin waxaan ka hadlaynaa airport oo diyaarad weyn ay ku degi karto airport shaqadiisa weli aan finalize aan laga dhigin airport shaqo u abuuray airport square aad u weyn ilaa 5 kilomitir oo u xiran asi security-ga iyo airport security parameter loo sameeyay ay ku xiran tahay airport diyaarad badan ay imaan rabaan jid loo dhisayo reer Baraawe deeno interested wax kale waxay interest ku yihiin maanta wadadan loo dhisayo magaaladooda 7 kilomitir wadadan u dhowna waxay maraysaa wadadii Kismaayo iyo isku xiraysa Muqdisho weeyo oo jabsan oo hadda dawladda South West ay $200,000 ay ballan qaaday dawladda dhexe ee Soomaaliya European Union markay soo kaashadaan waa wax dhismay dhul Soomaaliyeed
ma yeeli lahayn guri ayaa meel laga tagay 4.3 milyan xitaa lacag European-ka ina siiyaan hadday aan leed ma yeelin musuqmaasuqa laakiin tenderka shirkadda dhistay sida loo dhisay waqtiga la dhisay sida waxa loo dhigay oo kale waqti ayaa ku baxay markuu yiri 30 iyo dhowr maalmood ayaa biyo ku furnaa markuu yiri waxay nagu qaadatay intaas waqti ay nagu qaadatay in aan ka xaaqno meesha la xaaqayna ma ahan gurigaaga qolkaaga yariiska ah ee xaafadda bakaaraha ku yaala maahan waa guri waa kilomitiraad oo laga xaqay marka la xaqay kaliya la fiiriyay dhowr bilood in ay ku soo noqonaysaan diins ku soo noqonayso marka Xasan Cali Khayre Prime Minister Soomaaliya ayaa furay reer Baraawe dadkii ka soo qayb galay aad ay ugu farxeen waxyaalaha kale waa couple of days ayaa la xasuunaanaya laakiin waxaan aad ugu farxsanahay walaalaheen Soomaaliyeed ee faraha badan ee 1500 ay daawanaysa iminka 1500 dhamaanteen inaan wada noqonay aadan ugu farxsanahay ninkii dhihi jiray heblow dhiirane abwaan dhiirane wuxuu yiri jaamacadda Indhacdeys hadda waxaan ogaaday anaga hore inaan ka soo wada baxnay jaamacadda gawaanka airportada jaamacadda surveyga laakiin hadalku wuxuu soo xirmay maalinta tiraahdeen Garowe iyo Baraawe waa terrainka dhulka waa isku marka tiraahdeen maalintaas ayaa intaga wax ay shaqo isku leeyeen habayraatay ma jirto boosaaso dhulka Soomaaliyeed waa kala jarjaran yahay dadka geologiyada yaqaan weydiiya dhul burley ayaa jirta dhul waxa jirta saxal ah dhul waxa jirta sabaana dhul waxa jirta dhirley ah beerayta maabka fiiriya dhul waxa jirta airport aan laga dhisi karin oo ma aragtay oo daadka ama uu yahay ma aragtay roobka markuu daad soo qaaday sida airport qaarkood oo kale marka laakiin hadii expertise aan noqonay oo kafeegeena aan sib aan ku leenay cappuccino iyo qara aan cabayno waa mas'ala kala waay laakiin waa loo baahan yahay dawladda in check and balance lagu sameeyo laakiin magaaladii aan tagay Garowe waa tagay oo aan dhahay waa airport-ka Soomaaliya ugu qurux badan oo runway-giisa ayaa ku yaala meeshaas caran lagama xaqin dhir yar ayaa ku taala laga jarjaray survey ayaa lagu sameeyay isla marka lagu sameeyay oo la aasay gawaankii lagu aasay ayaa laamiga la saaray wuxuuna ahaanaya 50 sano saas ayuu ahaanaya laakiin maanta airport-kan waxa ka sii daran waxay tahay waxyaabo ka sii daran airport-kan waa waxa dil iloobay waxa ka sii daran inta u dhaxaysa markii Baraawe diyaaradda waxaan arkay waxaan aad uga naxay waagi bacad celinta la sameyn jiray hadda loo baahan yahay wadanka uu noqon sababtoo ah dhulkii quruxda badnaa oo dhan waxa soo galay laakiin waxa la rabaa حتى دول كان بعد كمان كل سوق اللي وحيليه وح كدم بيه حسن علي غيري محمد عبد الله فرماجو ورأضياش وح كلكو إيدي لكن وحنا ونترك الكورنس هدا يدين هذا أضياش جوري غير إلا صافري أو تيرمينال كا وح ما عرفتي لو قلنا سي 4.3 ملها كيرين وحيابها وقصل بدن أو أن كقص لحالي وحي هاد سور الله هايو فريتانك أو ريزوره جرايو أيا أنت على عمد عصر وصاري فيري ماشان اللي ورماش وطبيل وإيرابور وامتي سبيس واي ومبارك انت ماشي تكتب مدح كاga soo dhacay sugaysa war umadan maxay ma hadii airport غير farmaajad ku eedeynaysan war dadka reer Baraawe loo furo Soomaaliya loo furo ka faa'iideysa dhulkaasna lacagtaas waxa bixiyay dadkan oo asxaabta aan nahay reer Yurub aan siiyay inaan dhahno way thank you waa mahadsantiin aan dhahno waa laakiin in hotel oo Garowe ku yaal maxaa iska galay Garowe dhulka maxaa iska galay meel waxa jirta Soomaaliya kamid ay ilaahay haduu ku roon yahay hadii saan loo faago biyo ay ka soo burqamayaan ay ka soo baxayaan email waxa jirta ilaa iyo hadii la qodo 100 mitir biyo aan ka soo baxayn marka dadka geologiyada PhD u haysta ayaa la weydiiyaa laakiin hadii aad noqotaan Indhacdeys University abwaan dhiirna uu sheegay waa wadanahay waxaan arkay opinion waxaan arkay aan la yaabay waxa la iga sheekay hadaan tagnay waxa magaaladii aan tagay program aan ka soo sameeyay wax walba aan eegay waxaan ku lugay almost 14 kilometer ayaan baa u raacnay 5 kilometer ma ku lugaynay ilaa iyo Sand Dunes-ka waxay ahaan waxyaalaha ugu naxdinta badnaa meeshaan ku soo arkay waa Sand Dunes-ka waa carrada bacaadka ah oo buur samaysay طبعا qofku ku yiraahdo waa dhul buuraley ah magaalada Baraawe been ayuu ku sheegay laakiin natural occurrence oo saxaraha ay ka dhacdo oo ah meelaha habeenkina ugu qabow maalintana ugu kulul oo dehydration ku dhacay hadana neecawda badda isbedelka ayaa wuxuu keenayaa in carradii ay maanguur ay samayso dhulkii ay soo gasho geedihii sabaanaha ku baxay ee kor intay ka kormarto meelaha qaarkood waxa arkaysaa in saxare ay noqotay oo bacaadkii marka airport dhulkaas ka dhisan yahay badda kuma dhisna banaanka 7 kilomitir u jira jidka u dhaxeeya meesha la yiraahdo impress agteeda ku yaala oo u dhaxeeya qofkii yaqaan marka hadii wax kale lagu murmo laakiin la yiraahdo guri oo yar oo konton ku lagu dhisi kara ayaa 4.3 milyan lagu dhisay oo aadan ka hadlin waxa time ka galay war cagafyada la keenay meesha cagafka ma ahan kuwii beera lagu falay kuwii dhulka dhajinayay kuwii kan ugu yar konton ilaa 100 dollar lagu soo gaday marka hadii Land Cruiser lagu soo gado oo bullet proof 100 150 oo balkaas lagu soo gadaayo taban
ودعيس إن قرش أصيبه تذكر قرش كما صوب international سومالي والعكس سومالي إسكاله أولسية أو أي مامورة إنتندر لو بحي أنت سألني لو ذاك يا لايف لو قلت لك لما هين هذا يقول ما سنتي وحي دليله solar portal @gmail.com وحي تاجر أنا ويتاي وحول بنا كما عشنا قفنا كبا ما قادنا قفنا وحما شكل marka idinka ayaa ugu muhiimsan oo dhageysta insha Allah wixii aad jeceshiin inaan ka hadlo solarportal@gmail.com ayaa soo gelinaysan mar walbana waa ka hadlayaa haddii dawladda dhaliilaysi dhaliil we are very happy wadanka waxaan rabnaa mucaarad adag inuu yimaado oo dawladda oo maartay la xisaabtamo haddii aad taageer qofna uga baqin waadi salaamaya wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan raali gelin ka bixinayaa okiyaalaha meel qorax ayaan joogaa dadka jooga North America ee dhaxantii hayso kala maniin waxaan kaloon aan rabaa inaan sheego arrin shalay aan soo geliyay oo coronavirus-ka mar badan ayaan ka hadlay ana dhakhtar ma ihi architect ma ihi airport design ma ihi inuu wariyo research aan soo sameeyaa horta ilaahay waxaan ka baryaynaa wadankeena coronavirus inuu noo keeno qof kasta Soomaali ah arrin baa shalay dhacday oo runtii aan aad uga naxnay haddaan Soomaali nahay arrintan inaan raaciyo waa muhiim dadkan insaan uga faa'iideyso waana maadsan raalli aado arrintan la soo daabacay ana aan soo shirgaray waxay ahayd nin Soomaali ah aniga idinkoo kala ah ayaa China Airways wuxuu ka soo raacay wadanka China magaalo kamid ah oo hadda meeshu ka bilowday cudurkan markuu ka soo baxay wuxuu ku yimaaday Imaaraadka Carabta isku tagay magaalada Dubai kadib Ethiopian Airlines ayuu ka soo raacay Dubai wuxuu ku tagay magaalada Addis Ababa isagoo xamar ka soo galay hatta wadanka adduunka ugu horeeya oo Mareykanka qofka trace kuma sameyn karin marka qofka ayaa la doonay in la xilqaamo wadankan anaga aan leenahay aan jecelnahay Soomaali Ilaahay ka hayo hadduu wadankan yimaado Soomaali waa tirtirmaysa wadamadii adduunka ugu qanisanaa wadanka regionkan aad ka noqon Lombardy la yiraahdo Alta Italy ku yaalo isbitaalada adduunka ugu fiican intaas qofada ka dhimatay wadankan Ilaahay ha noo badbaadiyo nin dhakhtar ah oo ardayda kamid ahaan jiray oo aan IT bari jiray markii dambe dhakhtar soo bedelay oo China joogo oo ataqaanaan Yaasiin Cabdi la yiraahdo Yaasiin Cabdi Saciid la yiraahdo oo nin dhalinyaro ah oo 3 bilood gurigiisa kama soo bixin meeshu waa nin ka shaqeynaya isbitaalka waxaan ay ka bilowdeen Ilaahay ya ka badbaadiyo yaa waxyaalo badan ka faa'iideystay wuxuu yiri cudurkan waa halis ma yaqaan meel qorax ay ku dad ayaa waxay radeen Soomaali kuma dhaco qoraxda ayaa badan Sacuudiga ayaa naga kulum marka way ku dhacdaa salaanta hal la yareeyo sanka afka ila taabanay hal la yareeyo qofka labada gacmood shaf u saar assalaamu calaykum laga dhaho dadka hal la ilaaliyo especially waayeelka ayaa inta badan ku dhamaada dadka cudurrada halista ah qaba sida kaadi macaanka wadna xanuunka kaadi sukroog waxyaalahaas badan marka cudurka Soomaali ku dhici kara waa ku dhici kara laakiin Ilaahay naga haayo dadka Soomaaliyeed inta isleeyeen Soomaali u soo fakad ummadaha halaagina haddii Itaaliya China ay joogtid meelaha kale Iran meeshaada naga joog Soomaaliya ha imaanin hanoo imaanin ummadaha halaagin kuwada ka baxayaan haday tagaan iyo ku soo laabanin wadankan 30 sano dagaal ku jiray maanta we can afford dhakhtar ma jooga meesha dhakhtar ma joogo marka ku leeyahay Itaaliya ma soo barbar dhigayo dhakhtar iyo waxaas ka hortay kara ma joogo qof ogaan kara ma joogo marka Ilaahay intaan ka baqno wadanka ummadda masaakiinta ee rafaasan laga halaagin haddii wadamada joogto iska joog meeshaada wadka haduu imaado meeshaad ku imanaysa inkastoo aad jeclaan lahayd Soomaaliland ku dhimatay laakiin meeshaada naga joog Soomaaliya ha imaanin kuwada joogana ma aragtay Ilaahay ha nabadgeliyo wadankan Ilaahay ha nabadgeliyo ciidamada qalabka sida Ilaahay madaxda kor ka dhigo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya cadawgeeda kuwa carabta kuwa dariska Ilaahay ha naga qabto wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh